dalalka Soomaalida ah oo dadka walaalaheena dariskeena ay haystaan waxaan iyada kale yahay oo annagu aanu ka qabnaa in dawladaha madaxdoodu iyo dawladuhu intuba in ay isu yimaadaan oo ay dhibaatooyinkaas dhex yaalla oo isticmaalku ay dhaliyeen oo ay ula jeedeen inay naqaybiyaan annaga walaalaha annaga intay naqaybiyaan waxna dhex dhigaan dhibaato noo sameeyaan kadibna ay nagu mushtaraan annaga dhaxdanada inaanu garanno oo dad xilkasta annagoo ah aanu ka tashanno oo danahanaga aanu u kala fahamno si run ah oo dhibaato la'aan nidaamka dawlad dhisidda iyo nidaamka federalismka sida uu uga shaqaynayo Ethiopia sida ay deegaanka Soomaalidu ay nidaamkaas uga faa'iideen iyo way aragnimadooda marka inahaas marka la isku geeyo runtii booqashadu aad iyo aad muhiim u ahayd annaguna macluumaad badan iyo aqoonna waan ka soo kororsanay iyo way aragnimo dadkii Soomaaliyeed oo dawlad kale iyo dal kale ku noolaadeen laakiin marka ugu dambeysay dad Soomaaliyeed yaan wadanahay noloshooda iyo muxuu ahay wanaagooda aan soo aragno adduunka qoomkii kasta oo joogaaba madax bay leeyihiin haddii madaxdaasu ay wax daran ugu gudoomisana markii madaxdaasu ay tagto ay dhimato magac xumay ka tagaan habaar baa laga daba diraa cay baa laga daba diraa kuwii inkaarta qabay oo joogay maxay waxa xun ugu gudoomiyeen ayaa qoomkaas yiraahdaa ama shaqadigaas yiraahdaa haddii ay wanaagooda ka taliyeen oo ay ka shaqeeyeenna magacsan bay ka tagaan dadku waa ku mahadiyaan wanaag bayna ku xusuustaan luqadda Soomaaliga waxay ka mid noqotay 4 luqadood ee Ethiopia la ogol yahay shahaadada dugsiga sare imtixaankeeda in loogu fariisto oo imtixaan oo yani national oo Ethiopia dana dadka adeega maanta ka jira ee dalkaasi jaamacadda Jigjiga 22,000 oo arday ayaa dhigata oo boqolkiiba 90 in ka badan Soomaali ay yihiin Soomaalida deegaanka iyo Soomaalida Soomaaliya intaba muxuu ahay isugu jirto waxaan anigu taa ka leeyahay Ilaahay baa xugmay annaga iyo Ethiopia iyo Kenya inaynu ku noolaano geestan Afrika inaguna hadda waa ku noolahay shak kuma jiro qoonka naga dambeeyana meesha ku noolaan doona marka wax tirtiri kara ma jiraan haddaba maxaa nala gudboon madaxda saddexda dawladood ma inaanu wax daran u gudoomin dadkanagii oo isku leeyna mise waa inaanu garanno oo wixii dhex yaala ay si fiican ugu tashadaan ay markaas si xaq ah oo saaxiib ah oo walaalnimo ah oo daris ah oo muxuu ah cadaala ah wixii isaga qasan inay ku qaybsanayaan haddaba waxaan is leeyahay wanaag wuxuu ku jira inay ku qaybsadaan sidaas xaq ah Soomaaliya Ethiopia taariikh dheer oo dhib badan ka dhaxayso waana waxyaabaha runtii anagu aanan ka hakanin annaan qarinin inaan taariikhdaas dheer bedelnaa rabna cilaaqaadka labadan dal ee Soomaaliya Ethiopia inuu hagaagaan rabna haddii colaad iyo dagaal iyo shir ay jireen maanta in saaxiibtinimo iyo muxuu ahay dan ka wada dhaxay labada dal la abuuraan rabna haddii aan French Somaliland ku imaado waxaan ka leeyahay anagu waxba kama qabno waana aan salaamaynaa saaxiibnimada iyo isu dhawaadka iyo safkaradka dadka degan dalkaas loo yaqaan Soomaaliya Franchise waxaan sunnaynahay isu dhawaadkaas iyo saaxiibnimada safkaradkaas waa in u socda oo ay dawladda Frenchigu ay yeeshaa dadka iyaga ah inay ogolaato khiyaarkooda inay ogolaato xornimadooda inay inuu siiyo saabaanu ku leenahay dawladda Frenchiga annagu haddii waliba loo eego taariikhda dawladda Franchise-ka ah oo ka dhalatay dawlad revolutionary waligeed ba ahayd oo xoreysay Afrika oo idil oo ay kaga hartay Soomaaliya Franchise inay xoreyso ayaanu weydiisanaynaa oo ogolaato sida iyagu ay ka jecel yihiin waxaan is leeyahay taladaas waa tala ugu fiican ama waa siyaasad ugu fiican baan is leeyahay dhulkaas madaxweynuhu muxuu ka aaminsan yahay mid la isku laga wada hadlayo waa mid ah sideeba hal mid oo mabda ah inay caddaha rabnaa dadka noloshooda cidi carqaladeynaysa cudur daar qalaha horumarka iyo wanaagga meeshaas aan ku soo aragnay maanta cidda dhayso xoreynayna iyo waa waxaynayna
ما راعسنين ما أي سنين إن العرقلة ذي إن مشكلة لقوا ما قبل